maalin dhaweyd taleefanka waxaan soo galiyay video baan TikTok-gayga soo galiyay waxaan kaga hadlayay gabdhaha macnaha inayna nimankooda taleefanadooda ku mashquulin oo qofka markuu shaqada ka yimaado oo kale guriga markuu imanayo oo kale waad soo daahday iyo la dhihin taleefanka la controlin gabdho fara badan baa arrintaas ka xanaaqay waxay dhaheen maxaad nimanka u tiriyaan la controlin waa inaan qofka telefoonkiisa la baadhaa isaga la controlaa meeshuu marayo meeshuu ku soo daahay wax walba la ogaadaa haddii aan ninkayga telefoonkiisa baadhin dee maba ogaan karaba ninkaygu inuu xiriir leeyahay iyo inuu naaga kala shukaansadii in kale mid baan idiin sheegayaa haddaba haddaad doonaysa inaad ninkaaga ilaashatid oo ninkaaga uuna meel kale kaa aadin oo ninkaaga controlshid isku day qalbigiisa inaad gashid ood xakamaysid haddii aad qofkan ku guuldaraysato inaad qalbigiisa xakamaysid kuma guulaysan kartid inaad caqligiisa xakamaysid ha isku mashquulininba qofkan inaad jismigiisa xakamaysid haddaad ku guuldaraysato qalbigiisa inaad gashid waa su-aal meesha ku jirta qofkan qalbigiisa sideen ku gelayaa oon ku xakamaynayaa qalbigiisa oon ku controlaa qofka qalbigiisa waxaad ku geli kartaa ixtiraam kalgacayl kala dambayn iyo kalsooni waa inaad dareensiisaa qofka xoriyad buuxda inaad dareensiisid waayo oo uu kaa dareemaa inaad ku kalsoon tahay hadal kasta uu kuu sheegana aad rumaysanaysid laakiin haddaad tiraahdo ka waran shaqada waxaad ka soo baxdaa 2 saace gurigana waxaad timaadaa 4 saace 2 saacadood dhan intaad kusoo maqnaataa halkaasaad maraysid waan ku arkay gaarigaaga gabar baa saarnayd saan weeyaan waa lagu soo wacay taleefankaaga sukuuridkiisa waa inaan ogaadaa waa inaan furaa waa inaan baaraa taleefankaaga lambar iyo sukuurid aan ogeyn kuma xiri kartid dad tiraahdo ixtiraam daradu bartay ka bilaabato weeyaan confuse-ka iyo wareerka in haysta ee guryo badan inaga dumiya 80% waxaa ka mid ah waxaan inaa qofka lagu mashquulo pressure la saaro qofka xoriyad uu dareemi waayo qofka waa inaad dareensiisaa inaad ixtiraamaysid respect gareynaysid ka dambeynaysid midna ogaada ragga oo dhan hal shay ayay u jecel yihiin oo ay ka siman yihiin waa ragga oo dhan waa respect in la ixtiraamo oo laga dambeeyo ninka ragga wuxuu ka jecel yahay dunida ma yaalo ma aha waxaan aan ilaahay wallahi tajribo caalami oo la sameeyay weeyaan raggu waxa ay u jecel yihiin in la ixtiraamo oo laga dambeeyo respect in la siiyo ninka ragga wax uga qaalisan maba jiraba marka qofka waa inaad dareensiisaa inaad ixtiraamayso xorriyad buuxdana aad dareensiisaa isagoo agtaada taagan qofku doono waa inuu wacaa qofkii doonana waa inuu soo wici karaa laakiin ka waran haddaad qofkii ku kalifto inuu 2 taleefan samaysto uu midna gaariga kaga soo tago si aan loo ogaanin sirihiisa iyo afaarihiisa midna koobadiinka aad lagu saar si aad u barbardhood ugu mashquulshid ama taas ma fiicno qofka xorriyad inaad dareensiisid waaye oo aad dareensiisaa inaad ku kalsoontaad hadalkiisa rumaysanaysid inaad qofka baadho oo maaragtahay daba gasho waxaa kaaga wanaagsan isagana uga wanaagsan guriga iyo familka oo dhan u wanaagsan inaad aamintid isagu hadduu ku khayaamo markaas isagay u taala laakiin adigu